madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo maanta khudbad ka jeediyay shirka wada tashiga maamul goboleedyada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa uu ka hadlay sida ay ku timi midnimadii Soomaaliland iyo Soomaaliya waxana uu tilmaamay in goboladii waqooyi ee Soomaaliya oo hadda Somaliland ay ku biireen goboladii koonfureed ee Soomaaliya balse aan loo abaalgudin waa sida uu hadalka u dhigay waxana uu si dadban u taageeray gooni isu taagga iyo waliba qadiyadda Somaliland ummad meel degan oo badan oo wax tabata taariikhda waa soo aragnay horaan u soo aragnay gobolada koonfureed iyo gobolada waqooyi markii la isku daraayay si niyad wanaaga ayay reer waqooyi intay dawladnimadii soo qaadeen ay noo keeneen waxa dhanba in ayaga lagu wareejiyay ahayd waxba laga mitixgelin maxamed ibraahim cigaal oo raganimadiisa kula jooga alla jooga bas dawladdii markay soo burburtay salaamu calaykum ayadoo la dhihin haddana waa laga tashtay dawladda la dhisay waa ka warqabtiin wax alla wixii shir la qabanayay oo dib u heshiisiin la lahaa hal shiroo dartood u baaqday ma jiro horaa looga socday nimankaas inay goostaan oo goosashadooda ay ku adkaystaan ma garay u leeyihiin mise gar uma leh Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen Television